wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland u weeliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud ayaa ka qayb galay xiritaanka tababarka macallimiinta kubadda cagta heerka sare taasoo lagu tababarayay sidii aqoontooda kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa sidoo kale tababarkan ayaa lagu baray sidii ay u soo saari lahaayeen macallimiin cusub deegaanada ay ka kala yimaadeen oo ka qayb qaadan doona horumarka ciyaaraha Puntland taasoo ay wasaaraddu yigsanayso inay noqoto hoyga ciyaaraha Soomaaliya. Tababarkan ayaa soconayay muddo 10 cisho ah waxaana ka faa'iideystay 25 macallin oo ka kala yimid 9 gobol ee Puntland. Tababarkan ayaa bixinayay macallimiin khibrad u leh kana soo shaqeeya wadamo badan oo caalamka. Xiritaanka tababarkan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane cali shiine ku-xigeenkiisa cabdullaahi sheekh iyo saraakiil ka tirsan xafiiska la taliyaha madaxweynaha arrimaha ciyaaraha madaxda xiriirka kubadda cagta Puntland agaasimaha waaxda ciyaaraha lajana hore arrimaha ciyaaraha madax ka socotay hay'adda JZ iyo mas'uuliyiin kale madaxa tartamada iyo tababarka xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Amaaja Case ayaa ka warbixiyay xiritaanka tababarkan la socotaan wuxuu soo bilowday 5tii bisha waxaana la soo gabagabeynayaa ama la xirayaa caawa xafladiisii tahay 14 bisha tababarkan intuu socday subax iyo galabba waa la soconay macallimiintan waxaa loo soo xulay inay yihiin kuwa qaadan kara aqoonta la baray qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii iyo macallimiintii ka faa'iideystay tababarka ayaa madasha ka hadlay iyagoona xusay aniga magacayga waxa la Sucaad Galow inta ay taqaan waa ay taqaan inta kale waxaan ciyaartoydii nasiibka badneyd ee bariisamaadkii dawladii kacaanka ku barbaartay ee qaranka Soomaaliyeed u ciyaartay haddana deeq waxbarasho wadanka Mareykanka ka heshay haddana wadankeedii dib ugu soo noqotay barnaamijkan maanta laga hadlayo waxa barnaamijyadii aan wadanka keenay train the trainers tababarayaasha waxaana ku guuleysatay GIZ oo sameysay 2019 waxaan ku sameynay magaalada madaxda Kismaayo Jubaland maanta waxaan ku faraxsanahay inaan joogo Puntland gaar ahaan magaalada madaxda oo barnaamijka si fiican u socdo runtii 6 bisha 4 bisha ayuu tababarkan noo bilaabmay waxaanu soo wadnay muddo 10 casho ah runtii waxaan qirayaa inaan si isku mid ah oo qurux badan oo wanaagsan inaan uga wada faa'iideysanay dhammaan macallimiintayada gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland Maxamed Ciiro gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Shiine oo madasha ka xiritaanka ka hadlay ayaa bogaadiyay tababarkan wasaaradda iyo xiriirka iyo bahda sportska Puntland iyo Soomaaliya waxa laga midaysan yahay in la hormariyo kubadda cagta Soomaaliya min tuulo ilaa iyo caasimadda Soomaaliya marka aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliyana in diido badan iyo isbedel badan oo kubadda cagta ay ka dhacaan waqtigan soo socda sida lagu rajayn yahay waxa farxadan oo caawa inaan ka qayb qaadano anagoo marka hormuud ay noo yihiin wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhammaan tiimka wasaaradda iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee goobjoogka ah caawa waxa ay muuqata kulliba aniga ahaan waxaana shakhsi kulliba isboortiga jecel dana kale aan isboortiga ula joogin aan jecleen dhaqaale ku raas ahayn qabiil ku raas ahayn waxaana shakhsi markastaba damirkiisa ku dhaqaaqay wax quruxsan markuu arko waxa ay muuqatay in labeentii Puntland maanta ay meesha marayso anigu hadda ma joogin xaqiiqdii haddii aan ogaan lahaa inay saas baasha socoto waan imaan lahaa tale iyo fikir waxaan ku kordhin lahaa laakiin caawa xamaasadeed aad bay ku kacsantahay waxaan dareemayaa dadkii saxda ah ee loogu talagalay in ay marka labeentii Puntland ahaayeen in marka la soo meesha la soo keenay waxaan rabaa marka halka arrin ballan qaada waxay tahay ama hay'adan kaashanaya Puntland kaashanaya anu isbedbeernayaaba inaan keeno macallin shahaadada u bixinaya ay tahay kaaf macallimiintan u keeno si marka uu shahaas u qaato birito meesha uu tago oo uu shaqaysto agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland Jaamac Xasan Cabdulle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda Hodan Siciid Xasan ayaa xusay in dawladdu hadda u soo jeesatay horumarinta ciyaaraha waxaan idinkaga mahadcelinayaa hadda marka arkaysan halka cabaar baan la fadhiyay Andrew waxaan ka wareysanayay waxa u soo baxay 25 qof hadduu Tobanbari tababar u waday feedback muxuu na siin karaa
wuxuu ii sheegay runtii tiim diyaarsan oo xushmad leh oo dadaalaya inaad ahaydeen Puntland waxyaabaha ay dhowrkan sano aad focuska u saartay horta waagi hore lagama badan jirin oo iyada weligeed laga soo badin baa laga soo badiyay marka waxay noo ahayd jeedal aad ba sportska loogu soo jeestay garoomo aad u qurux badan baa la dhisay dadkii baa la dhisay waxaan rajaynaynaa intaas inay uga sii dhawaataan wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahin ayaa soo xiray tababarkan isagoona xusay marka waxa weeye marka hore waxaan doonayaa horta inaan ku mahadceliyo si gaar ah u mahadceliyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Mr. Ali Shiir inuu nala soo qayb galay caawa farxadan qiimaha leh inuu maanta halkaan marqaati ka yahay dadaalka ay wado dowladda hogaamiye Saciid Cabdullaahi Deni ay ka dhabtahay inay horumarka gaarsiiso sportska marka waxa weeye dowladda aan ka shaqeyno waxay aaminsan tahay dhalinyarada sportska inuu yahay lafdhabarka wadanka marka waxa weeye ma caawin aan marqaati noo noqdo waxaan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto inuu noqdo gudoomiyaha ugu dambeyntii macallimiinta tababarka loo soo xiray ayaa madaxdu shahaadooyin guddoonsiin iyagoo uga mahadceliyay sida quruxda badan ee casharada uga faa'iideysteen waqtigana u ilaaliyeen maxamuud faysal warbaahinta dowladda Garowe.